calankii qaranka Soomaaliya oo ka babanaya bartamaha magaalada Berlin halkaas oo ay dhismo weyn ku leedahay safaaraddeena buura suraba u dheer kana Soomaaliya gobtuna silcay martaa hadda saxariimata abartuna waasnee hadduu jiro saban xumaad waxa xiga bari samaad sagsaguna waa waxaan safar ku tagay caasimadaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen safiirka dalkan inoo jooga ambassador Maxamed Tifow qunsulkeena injineer Maxamed Cabdi Kulmiye iyo qaar kamid ah shaqaalaha safaaradda oo uu ugu horeeyo Daawud Amoore intii aan ku sugnaa dhismaha safaaradda waxa la ii sharaxay adeegyada ay safaaraddu u fidiso bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalka iyo dadaalada ay ugu jiraan sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka taariikhiga ah ee dalkeenu la leeyahay dalkan Jarmalka waxa halka kursigiisa ku fadhiya kursiga shacniga iyo wanaagaas ka muuqday oo muujinaysa sida Soomaaliya u soo laabatay safiirka dalkan u jooga dalkeeni Soomaaliya ambassador Maxamed oo ku magac dheer Tifow waa kan ambassadorkii halka waxa ka lusha calankii Germany iyo calankii Soomaaliya isbarbar yaala waxa gadaashiisa ka muuqda madaxweynaha qaranka Soomaaliya mar walba madaxweynaha yimaada halka lagu dhajiyaa bacdama madaxweynuhu yahay astaanta qaranka iyo ilaaliyaha dastuurka ambassador soo dhaw waa maasantahay Shino aad u maasantahay oo soo dhaweynayna waan ku faraxsanahay maanta inaad booqasho noogu timid hadee Jarmal waa degantaa waad mataqaanaa sheeko kale ma jirto laakiin farxadeen marka runtii aan ugu soo booqatay safaaraddii Soomaaliyeed waa gacan furan ku soo dhaweynayna aad iyo aad ba ambassador u mahadsantahay sharaf bay ii tahay inaan imaado xarunta ee dalkeenu ku leeyahay halkan aan arko shaqada wanaagsan ee aad dadka u haysaan inikoo halka ka fulinaya danaha qarankeenu ee wadankan sidoo kalena u khidmeynaya muwaadiniinteena dalkan ku nool waana idinka mahadcelinayaa shaqada habsamida leh ee aad u haysaan dadkeena waxaan wareysi gaara oo aan gadaal ka shaacin doono la yeeshay ambassador Tifow sidoo kale waxaan warbixin gaara oo iyadana gadaal aan ka shaacin doono aan idinka diyaariyay dhismayaal qarankeenu ku leeyahay magaalada Bonn kuwaas oo dayacnaan badan laga sheegayo isxog wareysi kadib waxa sharafi ahayd in safiirka qunsulka iyo qaar kamid ah shaqaalaha safaaraddu ay igu maamuseen hadima sharafeed annagoo dhismaha safaaradda uga dhaqaaqnay mid kamid ah maqaaxiyaha ugu shidan caasimadda dalka Jarmalka halkaas oo aan ku wada qadaynay waxaan uga mahadcelinayaa dhammaantood sidii sharafta lahayd ee ay igu soo dhaweeyeen dhismaha safaaradda iyo sidii qiimaha lahayd ee magaalada Berlin igu soo dhaweeyeen iyo hadima sharafeeda ay ii sameeyeen aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaana dareemay muddadii aan ku sugnaa safaaradda inaan ahay nin yimi guriga isagu leeyahay allo solasi bulshada soo keenay sinjiga kamid ah sano waa qood kala soo lahay sariir lagu wada kamaan ana tusalo waxa hargeysay sabab